السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخياتان كصاحبنا برتيد يوتيوب كأكسو دوادا هانا جافولي جانال كذا بليس دياكو عصب تاس بسكراب إنو صار لايك ده شير ده كومنتي كبيحي إن شاء الله مهم أي نوتها إن أنا من نقطة وأتكو صدر سنتبه هذا هاني جافولي كحيرن بيت عندها يوتيوب كذا لا سعودت فيديو والبيسو جلس هاني ما تمحي إذي ودا هاني وحي إذي ودا كريم كراميل معمعان كان آذا أوغهلا ما فهمتي آذا ومعان بذيه ما شاء الله تبارك الله سكرتيسي ألابتيسي أساوته إن شاء الله waxaan rajeynaa inaa ka faa'iidi doontaan bal sidii uu kusoo baxay waxyaabihii aan ka sameeyey iyo qaabkan u sameeyey aan isla aragno ila diyaariya insha allah isla socod wanaagsan mees waxaan ku haystaa nus liitar caano bilis warqadaha macmacaanada ku jira marka aad soo gadinaysa aqri dariiqatal isticmaal maxay in aqrisid waaye ama dariiqada taxdiir in aqrisid waaye ama qaabka loo diyaariyo in aqrisid waaye saasa maxay wax si fiican u fahmi kartaa laakiin hadda idin sharaxo kareemkaneeti hal liitar iyo aan dhahay nus liitar caano ayaa lagu qasaa wax sokor ahna uma baahna sokortiisa asaga wato okay nus liitarka caanaha meeqa waa marka waa galaas buuxo si fiican u buuxo iyo bar galaas buuxo iyo bar waaye marka nus liitarka caanaha galaaskii waxaan ku shubtay digsiga neeto dabka maxay ahaydee ku daartay haafkina kareemkii aan kusoo dhex qastay ma fahanteen intaan kareem ku shubaa maxay ahaydee kusoo walaaqay marka dabkaasaan saarnayna bilis ha ka deynin qaandada waxyaabahan oo dhan boodhinka waxay u baahan yihiin in aan qaandada laga dhaafin dabkana loo daciifiyo ma fahantay inta awoodaada so qaandadaanetiya maxay ahaydee ku walaaqayna insha allah dabka marka aan ka disto 2 daqiiqo oo kaliya u baahan yahay inaad dabka u saarnaado waqti badan ma kaa qaadanayo meelaan dhigtay xoogaa wuu soo qaboobo ma fahantay markii uu soo qaboobo ka bacdi yaa rabaa inaan isticmaalo meeshan waxaan kusoo darsaday 4 baaquli baaquliyada yararka babayga caadiga ku shuban karta ay baaqul laakiin kuwan aniga waxaan u doortay yacni way xoogaa way qurxan yihiin ma fahantay weel alaabtaada cuntadan waxay ku fiican tahay mar walba inaad weel qurux ku geyso ama weel qurux maxay ahayd ku habaysato markaas ilqabad wixii oo macaanaa markay ilqabad yeeshaan ma aragtay maasha allah aad u sii macaanaanayaan ishiisa ku deeqda untiis ku deeqda ma dhihi jirno sheeg markaa aragtay weel qurux badan ku jira asiga qurux badan yahay yacni waxaa markiiba dareemaysaa inuu macaan yahay waana sida saxda so waxaa weelasha saasaa uga shubtay ay weel ku shuban kartaa adiga ma fahantay kuwa aan ku shubno qasab ma inaa isticmaashid meeshan waxaan ku haystaa karameel ama sokorta dhalaalsan sokorta neeto asaga wato bacda aragteena yartaan ka gadinayo ku jira asaga wato karameelku wuxuu caanka ku yahay ma fahanteen karameel aabal dhaaba sokorta iyadaba karameel la dhahaa magaca uu la baxayba kareemkan waxay tahay karameelkaas sokorta siiti magaceedu dhanaayo qaatay so كريمك عنده كراميل كده صحن يعني أما باقولي عسلك وديجينا وحير جيسها أو في جنينا مركزيو جيسها نو كل جارجارو مركا وكاسا أفرتويلا أو صو كل قيب صدي وكاسا مرنينا مركا بليس جنال كديا كعصب تاي سبسكرايب ده لايك ده شير ده كومنت كبيح مهم أي نوتاي أصحاب تاسي جارسي دت كداودو فيديو بدنا وحالا سبسكرايب مسارن تاس وحواي دجالا محيد كل جرام فهمتين marka waa ka saahay subscribe barteera guduudan waxa ma ka dhibeyso bilis waxaan rajeynaa in wax badan naga faa'iido sidaas daraadeed subscribe-keena oo saar asxaabtaadana sii gaarsiiya ka faa'iidaan marka kareemkeena soo qaadanay waxaan ku shubanay weelasheena 4 weel oo qaybsana marka hore haafan ku soo shubaa because waxaan ka cabsanaayay in maxay ahayd weelasha iga yaraado marka dhoobta kan ka soo gad ma anfacis moogta haaf ka dhigo ka bacdi marka inta ku soo harto u qayb yani isku manage garay oo yani in isla ekaadaan isku day hadii alaha awoodal uu raali ka noqdo waa mahadsantihiin marka sidii ugu soo qeybiyay midba mar ku soo shushub marka waa kaas ay xaaladii la socdo insha Allah kareemkan ana wax sokor ma ku darna ama maxay ahaydee aan idin sheegayaa waa aragteena oo maleena marka wax sokor ma ku dari sokortaas karameelka asaga ayaa wato oo salka loo dhigaa tan kale toodno dhadhankana asaga wato ma fahanteen waa caani asaga oo kaliya wax kale oo maxay lagu sameeynaa male markaan walaaqeynay waxa waay oo buubsiinay ma ahan oo hadana markuu qaboobo aad aan u garaacay marka
وحنبي madrabka yarka markii oo shabaqa ee markii wax lagu garaaco waana tan buf caana si markii lagu garaacayo wuu xumbeena mahno markii uu xumbeeyo xumbada sayto berri markaan talaadada kasoo bixiyo wuxuu iga naqanaa wax oo yacni dusha ka saara camal oo qofka u geysa waxoogaa uu isleeyahay maxaa waaye waxaanayto lagu keenay marka qofka u geynayso martidaada si ay uga shakininba waxaanayto oo qofka uu hadal u gelin waxaa sameynaya dhag qaandayri soo qaada xumbada sayto yariista ee ma aragtay iska bixbixi nadiif asagoo ku ah talaadada gasho ani hadda waqtigan aan sameyna waa habeen 4 saac habeenimo marti ay soo socotay alaabo badan oo aan sameeyay oo kamid ahaa marka 4 saac habeenimo waay waxyaabaha qabowga ee dhan markay marti ku imaanaysa habeenka inta la sameystaa talaadada la gashtaa ma fahanteen marka waa kaasahe hadda habeen waa 4 saac habeenimo waqtiga aan sameyno talaadadan galna insha Allah berri bacda alqado waa fawaakihda la cuni lahaay oo kamid yahay ama waxyaabihii macmacaanayo la cuni lahaay bacda alqadada oo kamid yahay marka bacda alqada markuu soo kusoo baxaa aan tusinaya waa kana habeen dhan oo talaadada noogu jira saxankaas yarkaa soo qaadanaya muhiim waa ina saxankaas ku gadislaan oo karameelka stylekiisa waxa soo saarayo markii la gambiyo ma fahante oo ku soo dhacaya asagoon ka jajabin waxba ka gaarin oo ku soo dhacaya marka style karameelka waa kana qofka yaqaano qofka aqoon hada baro waa kana marka sidaan u sameysay insha Allah waa u jeedin sokorta dhinacda dhac ka dhahday quruxdiis meesha ku soo baxday marka waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidi doontaan oo aad sameysan doontaan wixii aad maxay natiijo oo ka heshaan aad feedback ugu soo siin doontaan hadii Allah uu dal uraali ka noqdo fiidiyoga kale inta ku kulmeeno waxaan idin rajeynaa bash iyo barwaaqo insha Allah waa mahadsantihiin caafimaad insha Allah